Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada qaybtii xulka xigmadaha. Waxaan ku soo qaadan doonaa 7 xigmadood oo ku khotama noloshaada. Xigmada koowaad: saaxiibtinimada ama saaxiibka dhabta ah ma aha qofka waqti dheer aad taqiinay, balse saaxiibtinimada ama saaxiibka dhabta ah waa qofka mar waliba ku garab taagan. Xigmada labaad: ka faa'iidayso waqtigaaga. Dib waad u akhrisan kartaa qoraal, buug ama fariin lagu soo diray, maqal ama video, balse ma jiro system dib u soo celiya waqtiga. Xigmada saddexaad: markastoo aad ka shakido ilaa heerka aad gaari karto, dib u xasuuso intii aad soo martay. Waxaad ka soo gudubtay caqabado badan oo ku soo wajahay, waxaadna ka adkaatay cabsida. Xigmada afaraad: daacad noqo, laakiin ha ogolaanin in lagu isticmaalo. Aamin, laakiin ha noqon mid degdega. Dhagayso, laakiin ha noqon mid aan la dhagaysan. Xigmada shanaad: dadka ma oga oohintaada, dadka ma oga murugadaada, dadka ma oga xanuunkaada, laakiin waxay ogaan doonaan hal khalad goortii aad samayso. Allah subxaanahu wa tacaala mar waliba wuu ka warhayaa, wuuna kuu dambi dhaafaa. Ha niyad jabin, mar waliba Allah tal saaro. Xigmada lixaad: dulqaad yari iyo degdeg waa xididka dhibaatadaada. Ma ku khasbi kartid nafsadaada inay wax waliba samayso. Ogow in culays kasta uu ka dambeeyo fudayd, wax walibana ay waqti qaataan. Xigmada toddobaad ahna mid ugu dambeysa: guusha dadka kale ma ahan guuldaradaada. Ha ka xumaanin guulaha dadka kale. Guusha waxaa lagu gaaraa dadaal badan iyo dulqaad. Halkaana waxaa inooga dhan 7 xigmadood aan idin soo jeedinayay, waxayna ahaayeen xubintii xulka xigmadaha. Sidaa iyo nabadgelyo, kulanti dambe.